madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo ay wehliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha garoonka casriga ah ee cusub ee Muqdisho kaasi oo laga hirgelinayo deegaanka Maaxay oo qiyaastii 35 kilomitir dhinaca bari kaga beegan caasimadda Muqdisho. mashruucan oo ah kan koowaad ee hindisaha baaxadda weyn ee Muqdishada cusub kaasi oo madaxweynaha jamhuuriyaddu daahfuray 19 Diseembar 2024 waxa wajigiisa koowaad ee maanta la dhagax dhigay ka kooban yahay garoon casri ah iyo wada laami oo isku xirta Muqdisho iyo deegaanka Maaxay. madaxweyne maanta farxad gooni ay noo tahay in aan mashruuci aan in muddo ku riyoonayni aan maanta joogno bilowgiisii mashruucan markii bari dhaweeto oo madaxweynuhu daahfurayay dhammaan bariga Afrika gariir weyn ka dhacay waa ogtihiin Addis Ababa waxay dhisanaysaa airport cusub oo 50 kilomitir u jira magaalada tartanka ay uga qayb galaysaa Nairobi maalin dhaweeto waxay ku wareejiyeen shirkad Hindiya oo ay rabay in garoonka Jomo Kenyatta ay balaariyaan tartanka ay u diyaar garoobeen dhammaantood waxa looga jawaabayaa iftiinka ka soo baxaya Soomaaliya. garoonka cusub oo dhismihiisu uu si rasmi ah u bilaaban doono maalmaha soo aadan waxa uu ka kooban yahay laba waji waxaana wajigiisa koowaad ee maanta la dhagax dhigay ka kooban yahay raanway 4 kilomitir ah baakinka diyaaradaha iyo terminal isugu jira qaybta safarada caalamiga ah iyo safarada gudaha waxa uu sanadkii qaabili doonaa in ka badan 130,000 oo duulimaad iyo 80 ilaa 100,000 oo tan oo safarada kaargowga ah. mudane xasan maxamed xuseen muungaab gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in tani fursad weyn u tahay dadka Soomaaliyeed iyo horumarka caasimadda Muqdisho. mudane madaxweyne aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad maanta noo dhagax dhigtay oo himilooyinkii shalay fikirka ahaa maanta ay dhaboobeen ay bilowdeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed anigoo ku hadlay magacayga kan maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Muqdisho iyo waliba si gaar ah dadka deegaankan oo nasiibku u yeesheen mashruucan ka dhaqaaqo waxaan leenahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waan u hambalyeynaa waa fursad iyo sharaf weyn in mashruucan qiimahan leh lagu maamuuso loo doorto deegaankan. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa tilmaamay in ka Hirshabelle ahaan ay soo dhaweynayaan faafitaanka caasimadda dalka iyo in mashaariic heerkan gaarsiisan laga firgeliyo deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. mudane madaxweyne soo dhawaabaan ku leeyahay mashaariicdan deegaanka laga dhagax dhigayo ama guud ahaan ka fuli doonto bulshada ku nool Hirshabelle gaar ahaan deegaankan aad ay u soo dhaweynayaan waa ku faraxsan yihiin waxaan leenahay waa mahadsantahay mudane madaxweyne mashaariicdaana waa horkacaynaa insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo midna waan rajaynaynaa insha Allah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dan badan ay ka heli doontaa muuqaal iyo sharaf ay ka heli doontaa reer Hirshabelle gaar ahaan deegaankan laga hirgeliyay na waxaan rajaynaynaa ilmahaaga xoolaha moorada ku jiro sibaa loogu kala xudumaa waxaan rajaynaynaa in la dhihi doono masaalixda ka imaahayso dadka deegaanka loogu roonaado in la dhihi doonana waa rajaynaa insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo masaalix heer federaala mid heer state iyo mid heer deegaana intaba inay ka imaan doontaan waa rajaynaa insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo. mudane madaxweyne soo dhawow waa ku faraxsanahay mashaariicda intaan la eg waana rajaynaa insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo maanta waa dhagax dhige xirijarkiisana saa isula qabanay inaan isula qaban doono iyadoo maandeed cusub la wada haysto aad iyo aad u mahadsantahay mudane madaxweyne soo dhawow. madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in mashruucani bilow u yahay Soomaaliyada cusub isagoo oo tilmaamay in mashruucani yahay mid qaran oo ay maamuli doonto dowladda dhexe ee Soomaaliya balse deegaan ahaan uu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Hirshabelle. mashruucan iyo dhulka uu ku yaalo guud ahaanba maamul ahaan maamulka Hirshabelle ka tirsan dhulkan waa dhul hoos yimaada maamulka Hirshabelle laakiin mashruucan waa mashruuc qaran oo national ah mashruucaas qaran iyo mashaariicdaas qaran dhulka ay ka horfurayaan dowladda federaalka dan guud ahaan ay ula wareegtay dowladda federaalka mas'uulka ah buqcadaha mashaariicdan ay ka hirgelayso laakiin buqcadahaasi waa buqcado ku dhaxeeya ama ku yaalo dowlad goboleedka Hirshabelle
dowlad goboleedyada kalena sidoo kale ayaa mashaariic heer qaran ah oo ayaga markooda gaari doonta ayaa ka fuli doona laakiin kan maanta mashruucan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa iska leh mashruuc deegaan gaara ama dad gaara ay leeyihiin ma aha. Shucayb Maxamed Cali, warbaahinta qaranka, deegaanka Maaxay, degmada Warshiiq, gobolka Shabeellaha Dhexe.